وهجاجي بوجا وقريكا وهجاجي بوجا بعدنا موت المدين واي هاي حرف فاذا وحي كتمد حرف باء قاف هنا حرف نون واو حرف راء تصالحنا عن أرينا مركا حرف باء بانقريا فرت باء ذا ساس وشيفتا فرت راء ذا سيدو كله فرت نون لمد صدح ذا فروه واسدا حاجة دررك يخلوعه واسكمد حرف باء وريك اللي صدرك الراعي والله حرف راء حاجة صدرك هوس سودجل حرف نون وريقي نون قدر فروه واسكمد بانير مركا فرتا وحينهم بالغ اللوعين يا فا باء اسكمد waxaan sameeynaya inta irtaas aan ku daraya inta irtaas halka ka bilow xagan u jiif dhibicsi fa inta irtaa ku dar waaw inta ku dar qaaf fa waaw iyo qaaf faadu waxay la mid tahay baado day saxanta faadu ku dhimi meesha waaw haduu saxan yahayna ترادان كدبينين سيدو كلا قاف iyo nuun baadi baa saxan faad way saxan tahay raadi baa saxan wooguna waa ku saxan yahay nuunkii baa ku saxan qaafkuna waa saxan yahay waa inta marka madaxa waa mushtarik xaraf nuun xaraf ra xaraf ba intaas baa ku dar marka saddexdaas ay kala noqonayaan faada qaafka iyo nuun madaxa xagga jiifka iyo qalooca waa isku mid sida ay baada iyo raada iyo nuunba ay isku mid u yihiin faad markay dhexda ku jirto waa oo xarafa isla markiiba soo duub waa markay dhexda ku jirto marka u dambeysana waa la mid wareeg ka dhig oo sadarka raaci fa ayadoo dhexda ku jirta iyo ayadoo u dambeysa qaafka waan soo aragnay waa xaraf nuun xaraf qaaf labada dhibcosi dhexda waxay noqonaysaa fa dhibic kale ku dar qaaf dhexda markay ku jiraan waa isku mid laakiin faadu marka ay keli tahay faadu waxay ku soconaysaa sadarka koorkiisa ku soconaysaa qaafkuna wareega nuun hoosna wuu soo daganaya labada marka isma laha fa iyo qaaf ama dhexda markay ku jiraan waxa uu kala saaraa labada dhibcood dhibic fa laba dhibcoodna qaaf iyo marka u dambeysana waa la fahmi karaa haddaan dhibcaha taala siirin xarafkan inuu qaaf yahay waa la garan karaa kana sidoo kale haddaan dhibcaha ka masaxo qaafnimadkiisa qaabka uu qoran yahay xaraf nuun faadu qaabkay u qoran tahay waa xaraf ba marka waa isku mid un qaaf waayahay xaraf kaaf markaan qorayo ugu horeyn waxaan ka bilaabayaa wareeg tusaale wareeg yar baan sameeyay intaas ushu toos u soo dagan mayso sida tan oo kale tan toos u soo dagatay waxaan sameynayaa wareeg yar baan u sameynayaa wareeg yar tan toos u bixi bartaad ka bilowday markaad la siman tahay waxaad ku daraysaa in la eg ku dar in la eg marka lagu leeyahay hada cabir masarad iyo la saaraya ma lehe muuqaal ahaan in la eg ha ku noqoto waxa gadaal u celi soo wareeji qaybta marka waxay ku soconaysaa qaybtaan hoose sadarka haday sadar laan tahayna toos baad soo bixinaysaa kaaf wareeg baa sameey toosan u bixiyay
bartaan ka bilaabay markaan la simanahay in la eg baan ku darayaa xaraf kaaf halkaa ka bilaab toos wad soo duub sadarka raaci kaaf kaasi wuxuu samaysan kan labaad daal oo aad loo weyneeyay halkaas sadarka ka bilaab sadarka korkiisa xaraf daal oo aad weyn usha korka soo qabo taabsi kaaf kaaf kan dhaxdana wuu galayaa sidoo kale kanna kan waa xaraf daal cabir ahaan xaraf daal waxaan ku darayaa anoon gacantii qaadin alif ku dar halkaa ka soo qabo taabsi kaaf oo alif ku taagan kaana oo kale markay tahay daal gacanta waxba ha qaadin hal mar le kor u qaad halkaa ka soo qabo kaaf kaa kale markuu keli yahay sadarka keen sadarka raaci marka waxba kor ha u laabi sida kan oo kale saa buugaa khadka qaar baa sidaa u qora sida ugu fiican kelida marka uu keli yahay kaafku iyaaka oo kale markay tahay seentaa dambe ma laha laakiin marka u dambeeyo oo kale ayaa loo sameeyaa bika oo kale markaan qoraya bika waa laabaysaa markaa bika xaraf laam waa fudud yahay sababtoo ah kani waa xaraf nuun fartaa ka bixi ul toosan ku dar xaraf laan toos soo wad wareeg ka dhig xaraf miim baan ku daraynaa miimku asaga ugu adag xaraf miimul xaa miimkan wuxuu u samaysan yahay kow sida xadoo kale tusaale halkaasaan ka bilaabay waan soo jiifiyey haddaan ku soo laabto aan sidaa iraado waa xa faryar jiifi miim ma yahay toosu soo wad farta markaad la siman tahay wareeg ka dhig usha toosu soo deji faryar jiifi adoon gaarsiinin ha soo laabin fartana ha gudbinin waa soo dhaafiyey ma soo gaarsiinin markaan la simanahay baan soo dejiyey xaraf miim toos soo wad wareeg iyo ul toosan ushan way toosan tahay miim labadan waxay kala yihiin miimul xaa miimka kale ee sabcadu u samaysan sabca waxa weeyaan waa markuu kali yahay kanina waa marka awalku uu dhacayo kan markaa leedahay mudarris kanna waa markuu kiligi yahay ama aakhirku dhaca koonaha xaraf miim halkaasaan ka bilaabay sadarkaan keenay kan labaad ee ugu horeeya asagana oo awalka dhacayana waa lami faryar taagan wareeg ka dhig bartaad ka bilowda ku keen sidoo kale wareeg ka dhig bartaad ka bilowda ku keen marka uu keligii yahay waa soo raacinaysaa dhexda markaad keentaa hoos soo dejinaysaa adoo yara samaynaya wareeg yar marka uu awalka uu yaalana xagga sadarka ha raacinin xaggan sidaa ha u raacinin xagga sadarka hoos u soo deg sadarka raaci saasay kala yihiin aan mar labaad ku celiyo kan wuxuu noqonayaa kor baan u qaaday wax yar baan xaggan u soo raacay hoos kanina hadduu sidaa uu noqdo haddaan wax yar saa u raaco oo aan sidaa iraado waa khalad kuma qurxoona barta aan ka bilaabay markaan ku keeno xagga sadarkaan aadinayaa leenkii aan samaystay ma raacinaya qarinka tusaale halkaasaan ka bilaabay asagoo weyn baan qorayaa halkaasaan ka bilaabay kor baan u qaaday waan soo duubay ma taabsiyey sadarka xaggiisa soo aadi sadarka xaggiisa miim kani waa marka uu awalka yahay mucallim mudiir mudarris maxmuud wakaas midka afraad waa iska fudud yahay asagu usha waxay u soo dayanaysaa si toos ah xaraf laan hoos xaggan u qallooci adoo qalloocinaysid xaggan ku noqo oo sadarka raaci xaraf miim sadarka xaggan u qallooci ku soo noqo sadarka raaci kaa kale waa marka uu aakhirka uu dhacayo tusaale ahaan hum oo kale markaan qorayo hum
ujeedada maxay tahay hada ujeedadu ma ahan miimka marka koonaha uu yaalo qaabkee loo qoraa qaabkaas loo qoraa aan aragna marka xaraf miim soo jiid asagoo wareega kor u qaad farta si toos ah qalinka gadaal u soo celi far taagan baa qoray gadaal baan u soo celiyay halkaas fanax yar baa ka muuqata isla raadka ku celi qalinka soo duub u shana toos u soo dhigato toos si toos u soo deji miim soo jiid kor u qaad hoos ku noqo oo soo laab miim labadaana ugu dambayso waa labada yara u aad moodo inay ugu adag yihiin حرف ميم مما إيه مما تسالي مركا أوجه الرئيس وحن قرية ثمانية ما قري زائد 2 8 لابو 2 كان وكا كون نقا تصبح سرقات ميم إيه ميم حرف ميم سيديد يرقر meesha ma furna madaxu waa xiran yahay ku soo noqo oo laba sameey laba qor ku noqo leek raay oo sar u qaad mimma sideed yar qor tira laba baan ku darayaa marka labo ku noqo sadarka raay sar u qaad labo saas baa loo qoraa sidana waa loo qoraa labada marka waa isku mid sideed yar laba ku dar ku noqo sadarka raay oo u shan toos markuu waa inay toos u baxdaa marka iyada mimma qaybta labaad wax yar farqi baa jira farqiga muxuu yahay miimka ugu horeeya sadarka kuma fadhiyo kan sadarku ku fadhiyaa miimka labaad sadarka la raaciyay kan miimkiisa labaad sadarka lama raacin marka gadaal loo soo celiyo oo sadarka la keeno isla markiiba kor un baa loo qaadayaa xaraf miim sadarka ku fariisi miim ku soo noqo sadarka markay ta kor u qaad sideed yar gadaal u celi kor u qaad هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hirkeliya rakontena hoy akon